qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa isla markaana madaxdaasi dhawaan ay hortagi doonaan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. warkaan waxaa Jowhar inoogu soo diray Cabdiraxmaan Xuseen Uudani. xildhibaan Cali Ismaan Ibraahim Cali Ciide oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Kalsan ayaa waxa uu ka hadlay isla xisaabtanka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ay la yeelanayaan xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabelle oo uga sareeyo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. waxa uuna xildhibaanku uu sheegay in isla xisaabtankan uu yahay mid loo dhan yahay isla markaana mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle qodooda ay soo xisaabiyeen. waxa uuna sheegay in dhammaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ay hor iman doonaan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. in laga hormariyo wax walba oo ah isla xisaabtanka guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada baarlamaanka. marala markuu go'aansaday in xildhibaano fara badan ayaa waxay soo jeediyeen qoraal ku saabsan gudoonkana uu gudbiyay in aan maaragtay ajenda kale aan la keeni karin si loo saxo wixii dib u dhaca wixii horumar maaragtay loo bogaadiyo waxay go'aan maaragtay qoraal mooshin ku saabsan gudoonka guddiga si buuxda ay u aqbaleen. intaa kadib waxaa noo furmay kalfadhigii waxaana ku bilowday isla xisaabtankii baarlamaanka haddii ay xildhibaanadii laftikoodii guddiyadii joogtada ahaa iyo guddoonkii. sidaad ka warqabtaan amaba hadiikiibaa saxaafadda aad la socotaanba si wanaagsan ay u dhacday. waxaa noo dhammaatay marka qaybtii koowaad ee baarlamaanka oo ahayd guddiyada iyo guddoonkooda. kadib waxaanu maaragtay ku xijinay in maaragtay golihii wasiirada loo yeero. waxaana hadda weli noo qarsoomay wasiirkii koowaad ee ahaa wasiirkii qorsheynta. isla xisaabtanka ayaa loo socdo. kadibna wasaaradaha kale ayaa insha Allah haddii aan la idmo ayaanu maaragtay ku xiga. isla xisaabtankaasna sidii horeba aan idinku sheegay wuxuu gaarayaa ilaa heer madaxweyne. baarlamaankana wuxuu go'aansaday maadaama muddadiisii uu jiray ay 2 sano ku dhowdahay in dib u eegis uu soo sameeyo. sidoo kale golaha wasiirada oo ayagana markii la magacaabay ay 6 bilood ka soo wareegatay ayagana wax qabadkoodii dib u eegid looga sameeyo si wixii dhaliilo oo jirin loo saxo wixii horumar ahayna loo bogaadiyo. marka meeshaas ayay maraysaa insha Allah. waxaan rajaynaynaa in arrintaas si guul ah oo sharaf badan oo karaamo leh inuu soo dhameeyo insha Allah. xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa iminka waxa ay wadaan isla xisaabtan ay la yeelanayaan xukuumadda Hirshabelle. waxaana ay sheegeen isla xisaabtankan uu yahay mid cadaalad ah isla markaana wasiir walba uu hor imaan doono xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo su'aalo la weydiin doono arrimaha quseeya wasaaradiisa. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan Jowhar.